بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان انت halka kala socota saxaafada taageerayaasha xisbiga iyo bulshada reer Soomaaliland waan salaamaya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan qiimo badan kadib waqtigan adag iyo waayaha bulshadu waxay maraysaa meel aan laga aamusi karin qoys walba waxa haysta duruuf u gaar ah dhaqaale xumada jirta iyo waayaha adag lagu jira waa culays wada saaran bulshada maciishada cirka isku shareertay waa culays aan la dhayalsan karin in badan oo ladnaan lagu tuhmayay ayaa xaalkoodii Ilaahay og yahay maanta qaar badan oo gawaadhi watay ayaa shidaalkii awoodi waayay oo shaqadooda u soo lugeeyay waxaan tira lahayn dan yarta aan basaska iska bixin karin iyo kuwa gaajo guryahoodii ka soo saartay ee suuqyada wareegaya ama ay masaajidada u geysay inay ka kacaan geed walba in gubtaa way hoostaala taasaana keentay inaan halkan is soo taagno madaxda xisbigaana waa ka hadalo duruufaha jira xukuumadda oo u xil saarneyd way ka seexatay waajibaadkii laga sugayay oo haba yaraatee maanta ma jirto wax qorshe ah oo dhibaatada taagan lagu xalliyo oo ay noo soo bandhigtay qorshaha kaliya ay xukuumaddu haysaa waa inay sii joogto awoodda dalka iyadoo waqtigeeda dhamaaday wax mashaariic ah oo socota oo ay la wadaagtay waxa ugu buuran oo ay ka dhigatay halbee ka dhigatay shaqo qaran bal waa yaabe 200 ama 300 oo qof ama wax la mid ah oo arday ah oo askarnimo la baro maxay kaga filan yihiin oo shaqo ka qaban karaan 500,000 half a million wax dhigta waxa muuqatay inaan xukuumaddu wax qorshe ugu tala gelin balse waxa ay ugu tala gashay inay dadka ku jahwareeriso waxaana isdul buuxiyay inta yar aynu sheegaynaan marka horeba waxba ka tareynaa dhibicda ah ayaa qorshe xumada xukuumaddu uu dhacay inay isdul fuulaan oo meel walba shaqaalaan loo baahan uu tago maan ku tala gelin inaan maanta ka hadalo laakiin xisbigu qorshe uu ka diyaariyay oo arinta kaga jawaabayo ayaa insha Allah taala dhici doonta dhaqaalaha oo laf dhabarta nolosha wuxuu marayaa meel aad u hooseysa meel aad u adag oo hooseysa dadka aan dab shidan iyo dan yarta xaaladoodu ay ku sugan yihiin xaalad ay ku sugan yihiin waa mid warwar leh qofkii damiir leh xukuumaddu markii waqtigeedii dhamaanayay oo ay 4 habeenu harsan yihiin ayay soo bandhigtay usbuucii hore shir dhaqaale ah oo ay dhaqaalaha laga hadlaya wuxuu muuqday maaweelo mana jirto wax qorshe ah oo ka soo baxay ama wax maalinkan maanta dadku ay dhibtii taagneyd kaga jawaabayso xukuumaddu oo ay soo bandhigtay ma jiro duruufaha adag ee lagu jiro iyo sidii looga dabaalan lahaa ma sahlana qof kasta oo mas'uul ahina way mudan tahay inuu wax iska weydiiyo waxaanu aragnaa waqtiga adag tala adag ayaa lagaga baxaa waayaa qalafsan midnimo iyo wada jir ayaa lagaga gudbi karaa dhibaatada jirta haddii aan la isu kaashan oo qof kasta aanu ka barbarkiisa ka gelin oo ka qayb qaadan qof kasta gurigiisa ay ku gaaraysaa mushkiladana qayb weyn waxa ka ah hoggaan xumada jirta ee dalka haysata hoggaan xumadaas oo ah cudurrada ugu waaweyn marka horeba curyaamiya ummadaha maadaama xukuumadan waqtigeedii dhamaaday oo aanay waxba inoogu maqnayn waqtigan oo aanay qorshaba lahayn maadaama ay inoo muuqato duruufaha aynu soo sheegnay ee bulshada ku sugan tahay bulshadu wadani wuxuu u arkaa xalka inuu yahay isbedel yimaada oo loogu jahaysanayo doorashada madaxweynuhu ugu soo horeyso waxaana marxaatiga furay guddiga doorashooyinka oo ah hay'adii u xil saarayd in doorashada madaxtooyadu ay tahay ta ugu soo horeysa sharci ahaan diyaarka ah waxa muuqata in ay muddo iyo jadwal soo gudbiyeen ay ku qabanayaan komishiga doorashooyinku موقف كحسبه
waa doorasho jadwalka ay soo gudbiyeenna wuu waafaqsan yahay balse waqtiga maadaama waqtigii sharciga aan lagu qaban karayn ay dhaaftay waxa ka dhalanaya arinta wax isweydiin iyo dambi iyo suurto gelin waaye doorashada xukuumadii oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo dastuurku amray inuu doorashada qabto oo xilka uu ka saaran yahay koobaad ayaa mas'uulka ah waana in lagu xisaabtamo golayaasha waxaanu leenahay waa in lagu xisaabtamo ma aha in dhayal laga dhigo sidii aan hore u sheegnay mowqifka xisbigu waxa weeye inaan 13 November aanan ogolayn wax ka dambeeya muddo kordhin ka dambayso aan la isku waafaqsanayn oo laga heshiin waxa mowqifka xisbiga horena u sheegay imkan aan ku celinaynaa xisbiga wadani wuxuu ay xalkii lagaga bixi lahaa duruufo adag wuxuu diyaariyay barnaamijyo dalkan lagaga samata bixinayo xaaladda adag aynu soo sheegnay ma aha mucjiso ee waxaanu diyaar u nahay in aanu la wadaagno bulshada qof kasta la fariisano uu nala eego barnaamijkayaga haddii uu wax ku darsanayo iyo haddii wax ka garan waayo intaba diyaar baanu nahay sida garanaysaan dhamaantii la socotaan hore ayaan u soo gudbinay barnaamijka xisbiga oo dhaqaalaha maanta xukuumaddu ay farafaraynayso u taaglaadahay inaynu 2 bilyan gaarsiino budgetka ayaa ka mid ahayd 5 sano xukuumadduna halka marayso idinka arkaya waxa ka mid ahaa ciidamada inaanu u dhisno 10,000 u dhisno oo guri dhisno ayaa qorshe noogu jiray qorshayaashaas oo dhami noomay suurtoon because maxaa yeelayna lama siinin bulshada awoodiina ma siinin laakiin si hadii awoodda ayna siiyaan taasaanu samayn lahayn iminkana insha Allah taala waa tan qorshaysan mustaqbalka waxaan uga gudbayaa safarka madaxweynaha uu dhawaan ka soo noqday wuxuu ila muuqdaa safar aan ujeedo lahayn oo la iskaga mashquulinayo doorashooyinka iyo duruufaha adag ee soo sheegnay jaamacadaha Hargeysa iyo Burco iyo Boorami oo uu tagay madaxweynuhu wax uu ardayda la wadaagay oo duruuftii jirtay iyo shaqadoonkoodii iyo mutacalimiintii soo baxaysay uu la wadaagay ma jirin hal haysyo ama ereyo aan meesha ku haboonayn oo ama uu yiraahdo mas'uuliyiintii qarankan darbaaxi gaadhay ama hooyadaba ay soo fartay nin walba hooyadii wax soo fartay wax khayr la haday ku soo fartay hooyada waa laga sugaya safarka madaxweynuhu kama jawaabayn baahiyaha iyo duruufaha wadanka haysta abaara jira iyo arrimaha adag maanta taagan kulamada igu sawirtaa ee madaxweynuhu safarka ku soo galay dhammaan iyo hadallada uu ka jeedinayay sidii uu caadada ahayd golka fuulka ahaa waxay u muuqdaan sidaynu soo sheegnay midaan qorshe lahayn shaqaalaha dawladda ee madaxweynaha soo dhaweyntiisa lagu mashquuliyay iyagoo ku mashquulsan shaqadii qaranka waxaan u aragnaa inay tahay power abuse ama ku xadgudubka awood xeerkuna uu ka soo horjeeda ardayda maalmihii waxbarashada ay dugsiyada dhiganayeen laga soo guray safafka loo taagay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan waxay u muuqataa in waxbarashadoodii halkii kuwii soo baxay jaamacadaha ka baxayna qorshe iyo program looma sheegin kuwii wax dhiganayeen kaalaya oo halkaysa soo tubay soo dhaweeyo iscabiya ayaa ka muuqatay waana un qorshaha dictatorka iyo ninka aan waxba u qorshaysnayn sida uu hadiya jeer yeelo waxa ciidamada lagu caburiyay cid kasta oo doonaysay inay dareenkooda muujiso haday ahaayeen intii burco iska abaabushay haday ahaayeen ood weyne haday ahaayeen laascaanood iyo meel kasta waxa lagu caburiyay ciidamada lagu caburiyay waxaanu leenahay dadka xoog iyo jujuub kuma haysan kartido cod bay kugu doorteen waxaan uga gudbayaa madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaanahan hadlay oo sheegay mowqifkooda Soomaaliya lamana yaaban inay mowqifkooda sheegaan dad badan oo reer Soomaaliland ayaa isweydiinayay laakiinse waxaan leeyahay haddii mowqifkaagu yahay midnimo oo aanad maqli karin madax banaanida Soomaaliland iyo gooniistaageeda annagana mowqifkayagu waa madax banaani iyo Soomaaliland oo beesha caalamka ka mid noqota iyo dadka Soomaaliyeed oo ah walaalo isku dub yaala iyo dawlado iskaashada midnimada Soomaaliya rabitaan bulsho ayay ku tumi ee rabitaanka siyaasiyiinta kuma iman gooniistaaga iyo madax banaanida Soomaaliland waxay ku timi
rabitaanka bulshada reer Soomaaliland waana arin aan ahayn ugub ku qoran charterka UN-ta United Nations in ummaduhu ay masiirkooda xaq u leeyihiin inay ka taliyaan ay ka tashigooda nin kasta oo hoggaan loo doortay waqti buu leeyahay dadka Soomaaliyeedna waxay ku qiimeyn doonaan dhaxalka uu ka tago madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay wixii aad Soomaaliland tarto iyo wixii aad dib u hagardaamo u geysataa taariikhdii ku gali doontaa ee ka fiirso haday tahay hadal iyo ficilba waxaan wali aaminsanahay xisbigana mowqifka xisbiga wadanina in wada hadalku xal yahay way bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeed wada hadlaan kana timaado bulshada ka timaado go'aanka ay qaadatay oo ay bulshada reer Soomaaliland 97% u codeeyeen madax banaanidooda waxaanu leenahay مواقفta si shakhsi ay u qaadanayaan siyaasiyiinta Soomaaliya ee aan ku salaysnayn saldhigga u lahayn mowqif bulsho annaga mowqifkayagu waa mid bulshada u codaysay oo codka bulshada ku fadhiya